saddex qof oo u dhalatay dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo oogay dambi ah inay maleegeen shirqool ay ku doonayeen inay ku xadaan lacag dhan 1.3 bilyan oo dollar. lacagtan ayaa la sheegay in raggan ay doonayeen inay kala baxaan bangiyo iyo xarumo ganacsi oo ku yaala caalamka. saddexda qof oo aanan la xirin ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay adeegsadaan barnaamij dhanka tiknoolajiyada oo ay doonayeen inay u adeegsadaan xatooyada. sidoo kale muwaadin kale oo u dhashay dalalka Canada iyo Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in si sharci darro ah ay u kala gudbiyeen lacag. kooxdan ayaa sidoo kale la sheegay inay qayb ka ahaayeen weerar dhanka internetka oo la fuliyay sanadkii 2017. weerarkaas oo waxyeelo ba'an u geystay hanaanka kombiyuutarada ee adeega caafimaadka ee dalka Ingiriiska. mar uu ku dhawaaqay dambiyada loo haysto raggan ayaa xeer ilaaliyaha guud ee amniga qaranka Mareykanka John Demers waxa uu sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi uu hoy u noqday burcada internetka. mid ka mid ah raggan la soo eedeeyay oo lagu magacaabo Park Jin-yo ayaa 2 sano ka hor lagu soo eedeeyay dambi ah inuu ku lug lahaa weerar dhanka internetka oo lagu qaaday shirkadda sameysay qalabka tiknoolajiyada ee Sony. Master Park Jong-gan iyo Kim ayaa loo haystaa inay maleegeen shirqool ay ku doonayeen inay ku fuliyaan wax isdabamarin. waaxda cadaaladda ee Mareykanka waxay sheegtay in raggan ay u shaqeeyaan sirdoonka militariga Kuuriyada Waqooyi. kooxdani Kuuriyada Waqooyi waxay adeegsadaan kombiyuutarada halkii ay ahayd inay adeegsadaan qori. lacaga si casri ah loo dhaco halkii ay lacag kaash ah ka dhici lahaayeen bangiyada. waana qolyaha hogaamiyaha dhaca bangiyada adduunka oo dhan, ayuu yiri Demers oo ka tirsan waaxda cadaaladda ee Mareykanka. dhammaan ragga la soo eedeeyay ayaa la aaminsan yahay inay ku sugan yihiin dalka Kuuriyada Waqooyi oo aanan muwaadiniinteeda u gacan gelinin dalka Mareykanka si loo maxkamadeeyo. sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maalmo ka hor Kuuriyada Waqooyi ku eedeeyay in sidoo kale ay isku dayeen inay xadaan xogta tiknoolajiyadeed ee talaalka corona oo ay sameysay shirkadda dawooyinka sameysa ee Pfizer ee Mareykanka. wakaaladda wararka ee Yonhap ee dalkaas ayaa ku soo warantay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Seoul ay golaha sharci dejinta ee dalkaas u sheegeen in isku dayga ay sameysay dawladda Kuuriyada Waqooyi si ay ula soo baxdo xogta la xiriirta talaalka corona ee ay sameysay shirkadaas oo haatan ay iibsanayaan dalal badan oo caalamka. warbaahinta ayaa isku dayday in ay arintan wax ka weydiiso shirkadda dawooyinka sameysa ee Pfizer balse ilaa iyo hadda kama aanay soo jawaabin. sidoo kale dawladda Kuuriyada Waqooyi oo lagu eedeeyay talaabadan ilaa iyo hadda ma aanay helin wax talaalka fayraska corona balse waxaa la sheegay in toddobaadyada soo socda ay dawladda dalkaasi rajaynayso inay hesho talaalka AstraZeneca oo gaaraya 2 milyan.